Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaalaa qoom walba u diri jiray nebi ama rasuul, kaasoo ugu yeera in ay caabudaan Alle keligiisa subxaanahu wa tacaalaa. Barana sidii ay Alle u caabudi lahaayeen oyna u adeeci lahaayeen. Nebigaasoo sidoo kale ka reeba xumaanta iyo munkaraadka. Balse wuxuu Alle subxaanahu wa tacaalaa quraankiisa kariimka ah ku xusay 25 nebi oo keliya. Ambiyadaas la xusayna waxaa ka mid ahaa Nabiyullaahi Ilyaas calayhi salaam. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaalaa inoogu xusay si aan ugu cibro qaadanno qisadii cajiibka ahayd ee dhex martay isaga iyo qoomkiisa. Balse nasiib darro waxaa aad u yar dadka si xeel dheer u yaqaana qisada nebigan aadka u qiimaha badan. Waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa qisadiisa aadka ula yaabka badnayd iyo dhacdooyinkii xiisaha lahaa ee soo maray. Balse ka hor inta aan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirigeliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaalaa nebigiisa Ilyaas calayhi salaam u diray magaalo lagu magacaabo Baclabak oo ku taala galbeedka magaalada Dimashq. Waxayna dadkii magaaladaas deganaa caabudi jireen sanam ka mid ah asnaamta oo ay ku magacaabi jireen Baclan. Waxayna aaminsanaayeen in uu isagu Rabbi u yahay. Waxay u keeni jireen qaraabiinta, waxayna ka baryi jireen arsaaqda. Waxayna weydiisan jireen in uu u dhaafo dunuubtooda iyo gafafkooda. Nebi Ilyaas qisadiisana sida ku sugan Dabari wuxuu yidhi, wuxuu u tagay dadkii deganaa magaaladaas, markaas buu ugu yeeray in ay caabudaan Alle keligiis subxaanahu wa tacaalaa, oo ay ka tagaan sanamkan ay weyneeyaan. Sanamku ma ahan mid iyaga iyo naftiisaba nafci ama dhib midna u soo jiidi kara. Allana subxaanahu wa tacaalaa wuxuu yidhi, وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وحو الله سبحانه وتعالى يري Ilyaas wuxuu ka mid ahaa rususha. Muxamedow xus oo ummadaada u sheeg. Markii uu Ilyaas ummadiisa ku yidhi, war miyaadan rabbigiina ka baqaynin? Ma intaad ka tagteen rabbigiinii idin abuuray ayaad baryaysaan Baclan, idinka iyo aabbayaashiin horeba. Alle keligiisii ayaa idin Rabbi ah oo idin abuurtay. Markaas bay dadka deegaankaas beeniyeen nebigooda oo kadibna ka masaafuriyeen magaaladooda. Markaas buu mar kale ku soo laabtay si uu ugu yeero cibaadada Alle subxaanahu wa tacaalaa. Muddo ayuuna xaalku sidaas ahaa. Waa ay diideen in ay rumeeyaan, mana aysan ajiibin. Allana subxaanahu wa tacaalaa wuxuu yidhi, فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. الله سبحانه وتعالى wuxuu yidhi, waa ay beeniyeen dhammaantoodana cadaabka ayaa lagu xaadirin doonaa markii laga reebo kuwa Alle rumeeyey subxaanahu wa tacaalaa ee mukhlisiinta ah. Markaas buu Nebi Ilyaas rabbigiisa baryay wuxuuna yidhi, Ilaahayow banu Israa'iil waa ay diideen in ay ku rumeeyaan, waxayna kaa doorteen in ay caabudaan qayrka. Ilaahayow nimcada aad siisay ka cesho. Markaas buu Alle subxaanahu wa tacaalaa u soo waxyooday oo ku yidhi,
waxaan gacantaada geliyey amarka arsaaqdooda ee waxaad doonto ku xugmi oo ku habaar. markaas buu nebi ilyaas calayhi salaam yidhi, ilaahayow roobka ka jooji. markaas buu alle subxaanahu wa tacaalaa roob la'aan dhigay 3 sano oo xiriir ah. hal dhibic oo roob ah ogamay imaanin xagga samada ilaa ay xoolihii ka baaba'een oo dhirtii iyo geedihiina ka angegeen oo wax walbu ay abaarta saamaysay. dadkiina waxaa ku dhacay dhibaato aad u daran. nebi ilyaas calayhi salaam kadib markii uu habaaray waa uu ka qarsoomay indhahooda wuuna iska qariyey. arsaaqdiisana waxa ay ugu imaanaysay meel walba ee uu joogo. markaas bay banu Israa'iil haddii ay guri ka soo carfiyaan muufa carafteeda waxay dhihi jireen waxaa halkan jooga Ilyaas. markaas bay soo weerari jireen waxayna dhibaato u geysan jireen qof walba oo gurigaas la joogay. markaas buu habeenada ka mid ah u hoyday guri ay lahayd haweeney ka mid ah reer banu Israa'iil oo dhashay wiil lagu magacaabi jiray Alyasac. wiilkan ayaa wuxuu ahaa mid xanuunsan. markaas bay haweeneyda nebi Ilyaas hoysiisay oy qarisay. markaas buu isagana ugu duceeyey wiilkeeda. markaa buu alle subxaanahu wa tacaalaa ka caafiyey oo ka qaaday xanuunkii hayay. kadibna wiilkan ayaa rumeeyey oo raacay nebi Ilyaas calayhi salaam, wuxuuna u raaci jiray meel walba uu aado. intaas kadib nebi Ilyaas ayaa banu Israa'iil ku yidhi, haddaad ka tagtaan sanamkan aad caabudaysaan, alle ayaan idiin baryayaa, roob ayaana idiin da'i doono. markaas bay dadkii magaalada deganaa nebi Ilyaas calayhi salaam ku waafaqeen hadalkiisa, waxayna magaalada ka saareen sanamkii. waxayna nebi Ilyaas u ballanqaadeen in ay alle keligiis rumayn doonaan oo aysan alle ka sokow wax kale caabudi doonin hadda iyo wixii ka dambeeyaba. kadibna nebi Ilyaas calayhi salaam ayaa alle u baryay subxaanahu wa tacaalaa. kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa u soo dejiyey neecaw iyo roob fara badan, wuxuuna u soo celiyey khayrka iyo arsaaqda ilaa uu waddankoodu ku laabtay sidii uu ahaan jiray abaarta ka hor. intaas kadib waxay kufaartan daalimiinta ah dib ugu laabteen caabudista sanamkoodii Bacla, waxayna ku kufriyeen rabbigooda subxaanahu wa tacaalaa. nebi Ilyaasna markii uu arkay wixii ay sameeyeen wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa ka baryey in uu xaggiisa u oofsado. markaas buu alle subxaanahu wa tacaalaa oofsaday oo korna yeelay. allana subxaanahu wa tacaalaa wuxuu yidhi, wataraknaa calayhi fi laakhiriin salaamun calaa ilyaasiin innaa kadaalika najzi lmuxsiniin. waxaan filayaa in aad ka wada faa'iidaysateen qisadan. haddii aad ka faa'iidaysatay fadlan ha iloobin in aad like saarta muuqaalkan oo aad u sii sheergaraysa asxaabtaada kale. haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad sabskaraib saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.